assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. u soo dhowaada muuqaal cusub. noloshu waa sida mawjadaha badda oo kale. maalinba hir ka mid ah hirarka nolosha ayaa ku jiidanaya. hir walba oo hirkaasi ka mid ahina in muddo ah ayuu ku wadanaya oo alle uu jaangooyey. waxaa ku dafaya muddo hirka caafimaadka, kadibna hirka jirka, farxadda, murugta, fikirka, walwalka, isla hadalka iyo kelinimada. dhacdo walba oo ku soo martana xanuun gooni ah iyo xusuus gooni ah ayay kugu reebaysaa. ogowse walaal, xanuun walba oo soo mara noloshaada kulama qaybsanayo saaxiibka, xabiib iyo gacalisana kaama qaadi karaan. qaraabo kan kugu dhow beddelkaaga ma xanuunsanayo, mana taahayo. ee naftaada u ronow oo ilaali kana fikir. hana siinin dhacdooyinka xunxun ee noloshaada soo maray fikir iyo murug badan inta ay mudan yihiin. mar walbana xusuusnow walaal, mar haddaad ku jabtid dhabbaha iyo waddada nolosha, cid ku istaajin kartaahi ma jirto oo aan adigu ka ahayn. sidoo kale ogow walaal, haddaad hoos uga dhacday qayb ka mid ah nolosha, ha isdhiibin oo alle tala saaro. kadibna kartidaada iyo dadnimadaada in aad sare istaagtid mar kale waxa ay micno u tahay waa noolahay. is-aamin in aad qiimo iyo karti leedahay. hana ka raadin, hana ka sugin qiimahaaga dadka kale ee ka raadi damiirkaaga. sababtoo ah markaad ogaatid qiimahaaga iyo jiritaankaaga iyo in aad tahay noole fikir iyo caqli iyo karti leh, markaas baad curin ama abuuri kartaa nolol macno iyo hadaf leh. markaad ogaatid qiimahaaga iyo waxaad tahay, kadibna dheg jalaq ha u siinin wax walba oo lagaa sheego. una noolow noloshaada sida alle kuu doortay. ha u noolaan sida dadka ay rabaan in aad noolaatid. walaasheeda iyo walaalkayga muslimka ahow, mar walba noqo samo iyo wanaag fale haddii xataa aadan helin cid ku wanaajisa.